بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkeeni maamulka iyo maareynta ganacsiga la xiriiray waxaan rajeynayaa inaan muddo badan soo wada soconay oo casharo badan aad qaadateen oo la xiriira maamulka iyo maareynta qaarkiina inta badanna ay qaateen buugaagti wax badanna ka soo akhriyeen oo la diyaariyo af Soomaali ku tarjuman maanta waxaan ka hadlaynaa qayb kamid ah shaqooyinka oo qabto maamulka tii koowaad waxaan uga soo hadalnay shaqada qorsheynteeda inuu maamulku qabto ayaan uga soo hadalnay maanta waxaan uga hadli doonaa insha Allah agaasin ama organizing waxa la yiraahdo ayaan ka hadli doonaa waa maxay shaqo agaasin waa maxaa laga wadaa shaqo in la agaasimo maxaa laga wadaa agaasin waxaa lagu qeexaa hawl ama shaqo la qabanayo oo la nidaamiyo ayaa la yiraahdaa agaasin waxaa lagu qeexaa si guud si nidaam ah loo qabto hawl ama shaqo socota ayaa la yiraahdaa yacni agaasin kaas laga wadaa waa function oo aad iyo aad muhiim u ah marka la joogo xagga maamulka waxay u baahan tahay mar walba in hadii loo wax la plan gareeyo ama la qorsheeyo in agaasin la isku yimaado shaqada waa la qorsheeyay qorshaha waxa waaye in sanadkan waxaas la qabto waxaas laftirkooda see loo qaban doonaa taas muhiim ah marka waa isku dubaridid shaqo sida u socon lahayd in la isku dubarido yaa qabta agaasin horta waa shaqo maamul marka ugu horeeya yaa qabto hadii la yiraahdo waa shaqo maamul maamulkuna wuxuu sameeyaa wuxuu shaqada u kala leexleexiyaa shakhsiyaad ama koox ayaa loo qaybiyaa shaqada يعني شخصنا والله قيبي كرا والله كرا هبل أديك شغلان كليها leedahay intaas meeshaas ka soo bax adiga waxa waaye shaqadii in lagu sameeyo job segmentation in shaqadii la qaybiyo oo la yiraahdo ama waxa kale loo sameyn karaa si koox ayaa loo sameyn karaa waxa la dhigi karaa kooxdan intaas oo shaqo leedahay kooxdan marka shaqadan soo dhamayso kooxdan qabanayso marka shaqo kasto waxaa la gaarsiinayaa until generality zero wax la yiraahdo meesha ugu hooseyso iyo meesha ugu sareyso sida shaqada loo qabanayo ayaa la agaasimayaa sida riboorada loo kala qaadanayo warbixinta loo kala qaadanayo ayaa la agaasimayaa sida amarada loo kala qaadanayo ayaa la agaasimayaa qofkan ka amar qaadana kan ka amar qaadana labadan koox isku xiran intii wada riboor gareynayaan labadan koox isku xiran intii wada riboor gareynayaan qaabkaas loo diyaarinaa waa maxay ujeedada marka agaasin laga leeyahay ama organizing Englishka Englishkiisa waa organizing marka ujeedada laga leeyahay waa maxay ujeedada laga leeyahay agaasin ama organizing waa maxay hadafka isku dubaridida waa in la abuuro qaab dhismeed shaqadu iyo wax qabadka shakhsiyaadka si hanaan suuban ah hadafka laga leeyahay maxaa waaye in la helo hanaan ama deegaan si fiican la isku shaqeyn karo in la helo kaas waaye wax kale ma ah maxaa waaye hadafku waxa waaye waa isku dubarid waa in la abuuro jawi nabadeed jawi qaab dhismeed kan inta kana ku xiran yahay kan halkaas ka soo amar qaato kaasaas ha yeelo xisaabta yaa amraayo cash yaa bixinayo xisaabiyaha yaa waaye yaa xisaabiyaha amraayo report yaa xisaabiyaha ka qaadan karo waxaas oo dhan ayaa wax la yiraahdaa agaasin shaqo maxaa loo baahan yahay marka la dejinayo agaasin shaqo maxaa loo baahan yahay tilaabooyinka loo baahan yahay yani kala horeynta kala goynta shaqada kale ayaa kamid ah iyo nidaaminteeda diyaarinta iyo abuurka shaqo hoosaadiyo waa kamid ah diyaarinta xiriirka shaqada iyo sida loo kala amar qaadanayo waa keen kala soo hadlayo waa fahmaysaa Soomahan marka waxa waaye maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in intaas oo waxyaalood la isku soo agaasimo kala goynta shaqadan in la kala googooyo la yiraahdo adiga shaqadaada halkaan ka bilaabataa adigana xaggaan ka bilaabataa in la yiraahdo
diyaarinta iyo abuurka shaqada hooseedyada macnaha shaqa ka hooseyso shaqa ka koreyso intaba in la kala dejiyo oo la yiraahdo adi halkaas ka leedahay adi halkaas ka leedahay saas in la yiraahdo ay u baahan tahay waxaa kaloo jira diyaarinta xiriirka shaqada reporting waa xiriirka shaqada see loo kala amar qaadanayaa yaa amarka bixinayo yaa amarka laga qaadanaya yaa amarka qaadanayo see war la isku celinaya haddii qalad dhacayo see warka loo kala qaadanaa waxaasa la yiraahdaa okay talaabooyinka loo baahan yahay marka hanaan shaqo ama isku dubarid la rabo in la abuuro waxay tahay horta talaabooyin muhiim ah ayaa jiro haddaad rabto inaad shaqo qabato oo shaqadaas agaasinkeeda hagaajiso oo nidaamkii la kala doorto waxa waaye sheeg hadafka aad rabto in la gaaro horta waa muhiim talaabada koowaad waaye waxaan rabnaa inaan meeshaas gaarno waxaan rabnaa inaan qofkaas dilno waxaan rabnaa inaan sales targetkaas gaarno waxaan rabnaa horta sheeg bal hadafka shaqadan aad ka leedahay ujeedadu maxay tahay sheeg shaqooyinka la qabanayo hadafkaas aad dejisay shaqooyinka la qabanayo waxaan rabnaa inaan sales target sanadkan aan gaarno ilaa $2 milyan waxaan rabnaa in sales targetkeena uu gaaro $1,000 waxaan rabnaa in sales targetkeenu gaaro $100 milyan horta sheeg shaqooyinka hadafka la qabanayo hadafka aad dejisay marka hadafka aad dejiso ka bacdi hadafkaas sidii lagu gaari lahaa iyo shaqooyinkaas qaabka loo gaari lahaa ayaa sheegaysaa macnaha marka kood waxaa leedahay shaqaalaha aan tababarno marka labaad waxaa leedahay shaqaalaha sida oo macaamiisha la soo dhaweeyo ha sameeyaan marka saddexaad waxaa leedahay sales after sales service after sales aan sameyno shay qaabka u wada xiriiraya dadka shaqada u qaybi koox ama shakhsiyaad xataa u qaybi hebel shaqadan aan leedahay adikana leedahay shay qaabka ay u xiriirayaan dadka shaqada wado sheeg waxaa dhahdaa tilaabo muhiim waxaa dhahdaa amarka saasaa loo kala qaadanaa halkaasaa laga baxaa ninkaas amarka qaata saas waaye saasaa la lahaa okay waa mahadsantihiin casharkan intaasaan kusoo gabagabeeynaa waxaan rajaynaynaa inuu cashar faa'iido la noqdo wixii faahfaahina waa nala soo xiriiri kartiin asalaamu calaykum lambarkaas yacni ciddii rabto inay buugga u baahato oo PDF oo diyaarsan ha kala xiriiraan insha allah waa mahadsantihiin asalaamu calaykum